shaygan la yiraahdo coronavirus wax weyn oo muhiim ah oo qalbigayga taabtay ayaan jeclahay caawin in la qabsado familkaaga hooyada aad jeceshahay lagu diiday inaad soo fiirisid aabbahay aad jeceshahay hadduu xanuunsado oo corona ku dhaco isbitaal soo jiifo lagu diiday inaad soo zeeratid ama soo booqatid cunugaaga yar aad jeceshahay hadduu ka xanuunsado ilaahay ma kasee hadduu isbitaal la jiifiyo ayaa waxaa lagu diiday inaad soo fiirisid haddii tacsiib ku imaado ayaa waxaa la diiday inay dad ku imaadaan kusoo ziyaartaan waxaa lagu diiday dibadda inaad baxdid suuqada inaad aadid inaad guriga kale aad gashid waxaa lagu dhahay guriga isku xir meel ha tagin meel ha dhaqaaqin meesha guriga yaris fadhiiso labadan week kaliya waxaan dareemay xabsi iyo cariiri iyo rafaad iyo murug iyo kurba badan korkeen saarnay Allahu akbar markaas waxaan soo xasuustay waxaan yar maanta aan ka qeylin aan ka calacaleeno bal ka waran maalinta qiyaamaha aan ilaahay hortaaganahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku dhahay yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi maalintaas waxa imaanaysaa maalin cad hooyada aad ka ordaysid hooyada ka cararaysa aabaha waa ka cararaysa xaaskaaga caruurtaada ilmahaaga wilkaaga gabadhaada fahabartaada eedadaada qofka adduunka ugu jeceshay maalintaas waa ka cararaysa waxaad leedahay yaa ku fiirinin ama yaa ku arkin yaa ku wadin ajr yar Allahu akbar maalintaas waa maalin daran waay maalin sahlan ma ahan ilaahay quraankiisa wuxuu ku dhahay فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يا الله أكبر وصبر وقتي ولويه رب محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوله أنا وساعتك هاتين أنا إيمان قيامها سنان بانهاي سان أنا أنت تاغنهاي وحيوحيga قيامها يعني فرتيده inta yar space yar u dhaxeeyo ayaan waxaan nahay aniga qiyaamaha sidaas aan u kala fognahay ama aan isku dhownahay Allahu akbar goorma leeyahay xadiiskan 1441 sano ka hor oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sheegay ana wasa'aka hatayn Allahu akbar Allah quraankiisa wuxuu ku dhahay yawman kana miqdaruhu 50000 sana maanta xisaabta aan sugayno hal maalin din agteeda waxay kamid tahay waa 50,000 oo sano aan sugayno buugeena ma midig bilix meesha laga siinayo Allahu akbar marka 50,000 sano oo ilaahay la hortaagan yahay la sugayo oo qoraxda inta la keenayo oo la dhidayo rafaadka iyo hoolaas waa taqaanaan waa soo maqasheen hadana ku cili marabo marka coronavirus-ka wuxuu ibaray in ilaahay xikmad oo meesha ka rabo oo anaga hada muslim nahay am bin adan nahay inaan ka cibra qaano li ulil albab dadka wax garanayaan dadka wax fahmayaan aan waxa loogu talgalay qofka kale iska cilmaani wuxuu leeyahay waa saas waaye waa virus waaye corona waaye bahal baa isku dhacay waa hada daawadiisa waa la keenay waa laakiin qofka wax garanayo qofka ilaahay xikmad siiyay ya ulul albabka ilaahay siiyay la'allakum tafakkarun ina fikirtaan meeshan waxa ku jira fiiha xikma min Allah azza wa jalla والله وقلب حنون هويدادي aabbahayga oo lagu diido oo janaasada aad tagi karin ama adiga laba qof kali ina janaasada u tagtid hooyada aad jeceshahay markay dhimato lagu diiday inaad dhaqdid ama inaad u dhawaatid ama inaad madax ka shumisid ka waran hooyada lagu diido ama ilmahayga ama xaaskaaga ama awlaadaada oo lagu diiday maxaa cudurkan coronavirus waa cadow weyn aan arkeenin aan kulligan ka baqanayno gaal ay muslim way baqanayaan ajiib Allahu akbar fiiri quwada ilaahi uu leeyahay awood ilaahi uu leeyahay fiiri walaalkii walaashiyo meeshan anaga waxaan la barayaa coronavirus wuxuu ibaray in aan ilaahi u dhawaado wuxuu ibaray in wax walba aan iska dhaceenin illa ilaahi idinkiisa mooyee wax walba been u dhacaysa malahan coronavirus wuxuu ibaray wuxuu isoo xasuusiyay wallahi thumma wallahi labada wi guri aan ku xiranahay
aan cariiri aan dareennay cariiri aan caadi ahayn masaajidadii la soo xiray baytul xaramka la soo yareeyay oo dadka ay ku yar yihiin meelba la soo xiray waxaan dareemay cariirigan oo adduunkan yar aan ku dareensannahay bal ka waran cariiriga maanta qiyaamaha ilaa la hortaagan yahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar coronavirus waxyaalo badan ibaray waxaan ilaahay ka baryaa insha Allah taala in tawfiiqna waafajiyo in cudurkan nagu koriyo in ilaahay naga dhigo dadkii oo ku cibraysteen oo ku cilmi qaateen oo ku khibra qaateen oo ilaahay u soo laabtaan oo diin islaamkana ku dhigan ila yawm qiyaamah insha Allah ila al-abad meel bajitum idin salaamay ana walaalkiin Ali Mucaa Shariif waxaan idin leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh